naftaada horu socodkeeda, isbeddelkeeda wanaagsan, ka fogeynta wax kasta oo caqabad ku noqonaya, inay hesho degganaanta maskaxdeeda iyo qalbi dhiskeeda, iyo sidoo kale u halgamidda wax kasta oo ay doonayso helitaankooda, sida xaqiijinta hadafyadaada iyo rumaynta riyooyinkaaga. intaba waxaa mas'uul ka ah adiga. adiga. كن فريدا عش بفخر في الحياة، لا تبالي فالمعالي في التحدي لا سواه، كن سعيدا. السلام عليكم. waxaan ahay qaasim maxamed. ku soo dhawow muuqaal cusub. ku mashquulidda naftaada, sida inaad ka reebto caadooyin iyo dhaqamo aan wanaagsanayn ay leedahay naftaada, kuna tababarto caadooyin iyo dhaqamo ka wanaagsan, waa mas'uuliyad uusan kula wadaagin qof kale. muuqaalkan waxaan kugu soo bandhigi doonaa 5 waxyaabood oo aad ku qurxin karto naftaada haddii aad u dabaqdo si joogto ah. jooji dib u dhigidda. waxaad jeceshahay in noloshaada aad ka beddesho sida ay maanta tahay, balse waxaad la sugaysaa waqti ku habboon. soo sidaas maahan? waad saxan tahay, balse yaysan isku kaadarsamin waxyaabaha u baahan inaad u raadiso waqti ku habboon iyo waxyaabaha kaaga baahan inaad sida ugu dhaqsiyaha badan aad ku samayso isbeddel. wax kastoo aad la doonayso naftaada, sida isbeddel inaad ku samayso noloshaada oo dhan, oo aad fadhiga ka kacdo, boorkana aad iska jafto, uma baahna inaad u raadiso waqti gaar ah, waayo waa mas-uuliyadda ugu weyn ee kaa saara naftaada ayaa waxay tahay inaad u soo jeesato daryeelidda naftaada iyo wax u qabashadeeda. ma jirto qof kuu imaanaya si uu u hagaajiyo naftaada. ma jiro waqti gaar ah oo lagu magacaabo waqtigii isbeddelka, balse waqti kasta waa waqtigaaga. naftaada u soo jeeso oo diiradda saar hamigeeda, oo jooji dib u dhigashada tirada badan, oo waxaad xasuusnaataa mar walba waqtiga cidna ma sugo, dibna uma soo laabto. iska dhagatir dadka hadalladooda. shaki kuma jiro inay jiraan dad ku liida kuna niyad jabiya mar walba, hadday ahaan lahaayeen kuwa ehel iyo asxaab kula ah intaba. balse mid xasuusnow, dadka inay iska hadlaan waa caadadooda, laakiin qofka ka falcelinaya waa adiga. sidaasi darteed bar naftaada sida la isaga dhaga tiro hadallada niyadjabka leh ay kugu dhahayaan dadka qaar. iska dhagatirka waxyaabaha aysan u baahnayn ama dhibaya naftaada waa farsamo aysan ku baraarugsanayn dad badan oo inaga mid ah, balse waa farsamo dadka ku dhaqma ay mahdiyeen, sababtoo ah caqabadda ugu weyn ee qofkeen soo wajahda marka uu doonayo inuu u tilaabo qaado dhanka hadafkiisa iyo doonista naftiisa waxaa ka mid ah hadallada dadka. si kastoo ay u hadal badnaadaan dadka, marnaba ma jirto qof adiga kaaga aqoon badan naftaada awoodaheeda iyo kartida u gaarka ah uu Alle ku manaystay. sidaasi darteed ayaan ku leeyahay, qofna yaysan kaaga sheekay naftaada, oo iska dhagatir hadallada lidka ku ah hadafkaaga iyo nafsadaadaba ay kugu dhahayaan dadka kugu hareeraysan. seexo xilli hore, soona toos xilli hore. naftaada daryeel oo sii nasiino ku filan, oo ha ku dhafrin habeen walba isticmaalka taleefankaaga, kaasoo aan kuu soo kordhinin wax faa'iido u ah naftaada. yeelo waqti kuu gaar ah oo aad u seexato si joogto ah, si jirkaaga iyo maskaxdaadaba ay u helaan nasiino ku filan. marka aad seexato xilli hore habeen walba, waxaad awood u yeelanaysaa inaad soo toosto xilli hore, weliba adigoo fareesh ah oo diyaar u ah in maalintaada cusub aad ku qaabisho furfurnaan iyo howlkarnimo. sidaasi darteed ku dadaal inaad yeelato waqti u gaar ah oo aad seexato habeen walba, iyo waqti kuu gaar ah oo aad ka soo toosto hurdada. ka ilaali naftaada
cuqdadda. Cudurrada nafsadaheenna ku dhaca ee nolosheenna ka dhiga mid ku dhisan cuqdad, xaasidnimo, isla weyni iyo aargudasho ayaa waxay tahay in aan nafteenna barin sida wax loo cafiyo oo laabteenna uga dhigno mid nadiif ah. sidaasi darteed bar naftaada sida loo cafiyo qalad midka ugu weyn, waayo waxaad la dhaqmaysaa dad adiga kula mid ah oo ku dulminayo, ku xamanayo, kugu tilmaamayo wax aadan ahayn, kaana dhigayo mid dadka ugu liita, ku qalbi jabinayo, ku liidayo, iskuna haysta inay kaa sarreeyaan adiga. balse si kastoo ay ahaataba, adiga ahow qof cafis badan, cafintiisana ku raaligelinayo rabbigiisa, oo waxaad xasuusnaataa cafiska iyo wanaaggaba inaan marnaba laga dayicin alla agtiisa. ha isku dhejin qof aan kuu baahnayn. nolosheenna waxaa ku hareeraysan dad badan oo inoo ah ehel iyo asxaabba, waana dad aysan ka maarmin nafteenna. balse qaladyada aan galna waxaa ka mid ah inaan isku dhejinno qof aan inoo baahnayn oo aan inoo hayn wax dareen ah. taasi waxay dhaawacaysaa qalbigeenna, waxayna mashquulinaysaa maskaxdeenna ka fikirka qofkaas awgiis. sidaasi darteed ha isku dhejin qof aan kuu arag inuu kugu baahan yahay sida aad ugu baahan tahay oo kale, kuu ixtiraamo sida aad u ixtiraamto oo kale, kuu dulqaata sida aad ugu dulqaadato oo kale, kuu jecel sida aad u jeceshahay oo kale, farxaddaada u arka mas-uuliyaddiisa sidaada oo kale, kuula halgama nolosha sidaada oo kale, rajadiisa ugu weyna ay tahay siduu garabkaaga u taagnaan lahaa inta ka dhiman cimrigaaga. qofka aad jeceshahay haddii uusan ku bixinayn mid la mid ah dadaalka aad u bixiso, dantaada garo oo ha isku dhejin qof aan kuu baahnayn, oo ilaali sharafka iyo karaamada naftaada. dareenka ugu wanaagsan ee uu qofku dareensiiyo waa dareenka jacaylka. sidoo kale dareenka ugu xanuunka badan ee uu qofku dareensiiyo waa isla qofka aad jeclaatay ee aad u hibaysan naftaada, una diyaar noqotay inaad u bixiso qiimo kasta iyo dadaal kasta oo aad ku hanan karto, kuna farxadgelin karto naftiisa. balse nasiib darro qofkaasi uu yahay qof aan kuu soo jeedin oo aan u hayn naftaada wax dareen ah. ugu dambeyn, mar walba is ahow adiga oo cidnaha u ekaan, oo xasuusnow qofna kuma jeclaanayo ilaa adigu aad ka jeclaato naftaada. qofna kuma dhammaystirayo ilaa adigu aad ka dhammaystirto naftaada. caawi dadka oo wax u bixisa shuruud la'aan ah, weliba adigoo aadan ka rajaynayn inay dib kugu soo celiyaan. wax u jeclow si shuruud la'aan ah, oo muuji qiimaha, ixtiraamka, kalsoonida, tanaasulka, dulqaadka iyo dhabar adeegga uu leeyahay jacaylka, adigoo aadan ka filanayn qofka kale inuu ku siiyo in la mid ah inta aad ku bixisay, sababtoo ah dadka qaar lagama helo. haddii aad ahaato qof dabiici ah oo ku nool noloshiisa dhabta ah ee ixtiraama, jeclaada, qiimeeya naftiisa, waxaad soo jiidan doontaa dadka sidaada oo kale ah ee fikirka wanaagsan, runta badan, horu socodka jecel, kana run sheega naftooda. inta aan goordhow ku kulmi doonno muuqaalka soo socdana waxaan ku leeyahay, wax kasta ka hormari naftaada oo jeclow naftaada, una dadaal naftaada. qofna ha ku xadgudbin oo ha dhaawicin qalbigiisa. aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.